sheegi lahayn sheekay ku timaadeen maxaa kala socotaa dagaalkan cusub ee Malaysia ka dhex qarxay boorsooyinka soo xirta Malaysia ka dagayna maalmaha soo socda xagga ka shidan tahay maxaa isdagaalay saxaaf iyo Amiir Qurux iyo Ayaanita iyo Maxamed ninka saxaaf la leeyahay wuxuu la dagaalsan gabadha Amiir Qurux la leeyahay wuxuuna u soo dirsaday gabadha lagu magacaabo Ayaanita boosti hadaad soo dhigtay Snapchat-keeda ugu hanjabayso Amiir Qurux laatii tadwada bisha xalfada hadaad timaadid Puntland waa ku dilaa iyadoo dheeso waxaa soo jawaabay Amiir Qurux walaalkeeda Maxamed qoraalkan uu soo qoray oo saxaaf asigana wax ugu sheegay wuxuu dhahay Amiira saad cadow ugu raadinaysid waa daashi police iska naso Mrs Saxaaf heer iyo magac waa la sameystaa ma dumar ahaan baan ku tirinaa mise rag ahaan Amiiro 24/7 ay iyo u raadinaysaa kaale aniga iisoo hanjab adiga waxyaabo noocaas iyo saxaaf siiga iyo والله ciyaar baa haysa oo dhaay saaxibno teeda kale ninka saxaaf lagu magacaabo janaal ay ku qoran tahay adna janaal oo Facebook oo shal wuxuu soo dhigay qoraalkan yeeti ugu hambalyeenayo Amiir Qurux iyo Ayda uu leeyahay isku waaro ilmo khayr qaba dhala ay koon isqabin janaalkan adna janaal ku qoran laakiin waxa gacanta ku haya saxaaf waxa kale xog igu soo gaartay hadda ka horne in 26 June xalfad ay dhigtay Amiir Qurux oo asiga tagay gabar uu asila dagaalsay meesha timaaday gabadhii wixii dhan tuu la dagaalay oo alaabta dhan gabadhii ka jijibiyay oo wixii diyaarsi cuntooyinka dhan ka tuutuuray iyo xogyaal kale oo far badan maqlay kullee sheekada ka soo baxays dhinaca way adag tahay ninkan saxaaf la leeyahay dulmiga gabadhan Amiiro uu ku haayeen mid yar ma ahan 27 habeen dambe maho dhigtaano taagnaato dagaala ka qarxay meesha la dhahay Malaysia Allah naga waxaa dagaal jecel TikTok aanan foosta lahayn waa borinbo laakiin aan hal mid diiday sababtoo waxa arkay qoraalkan la wareejinay Amiir walaalkeeda oo Amiir difaacay walaalkiis inuu difaacdo xaq waaye laakiin wuxuu ka sii difaacay saxaaf ma ogi qof kale inuu leeyahay in kale saxaaf siigan ka dhex arkay ma ogi inuu saxaafiya in kale haba ahaata maxamed waxa lagu soo eedeeyay saxaafga wixii jiro عكاري إيمانه محاو عن بوقا ورجرب عكارو إيمانه الدهين سوماليدا يعني أميري إيو إزدقال كران أيانيتا لكن إنو صحاف كدنبي يعني صح مو مليناي يعني هدوا فكر كيغا قرال كان أميرو walaalkeed waa la dhahaayane aniga ma ogi ma u maleena inuu asaga sababto ay ciwaan kiis inuu asiyahay ma ogi committee uu soo qara